mas-uuliyiinta in ka badan 70 waddan ayaa ku shiraya magaalada Paris si ay u sii xoojiyaan taageerada xalka kaliya ee Falastiin iyo Israa'iil inay tahay inay laba dawladood noqdaan. labada waddan ee laga shiraya ayaan ku sugnayn goobta, balse Faransiiska oo qabanqaabiye kulankan ayaa sheegay inay muhiim tahay in la isla waafaqo Falastiin iyo Israa'iil oo noqda laba dawladood ay aasaas u tahay heshiis nabadeed oo la gaadho. Notre responsabilité collective est désormais de parvenir. Mas'uuliyadda aan wadaagno ayaa ah in aanu Israa'iil iyo Falastiiniyiinta dib ugu soo celinno miiska wadahadalka. Waanu ognahay taasi waa ay adag tahay. Hase yeeshee miyay jirtaa wax kale oo aanu samayn karno? Waa maya, ma jirto. Sababtoo ah ugu dambeyntii wadahadal oo kaliya ayaa lagu gaari karaa xalka laba dal oo lagu heli karaa nabad iyo ammaan ka hirgala bariga dhexe. Et la sécurité au Proche-Orient. wasiirro arrimo dibadeed iyo diblomaasiyiin sarsare oo ka socda 70 waddan iyo ururo caalami ah ayaa ku kulmaya magaalada Paris shir ku saabsan nabadda bariga dhexe. Israa'iil iyo Falastiin midna kama qaybgalaya shirkaasi oo ay Faransiisku sheegeen in ujeedadiisu ay tahay dib u xaqiijinta taageerada xalka laba dawladood. madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas ayaa soo dhaweeyay hindisaha Faransiiska, laakiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku sheegay khiyaano Israa'iil ka dhana, sida uu ku soo waramayo Hugh Scoville oo warkan soo diray. waxaa inoo soo jeedinaya Bashiir Maxamed Caato. wufuudka kala socota 70 dal iyo hay'ad caalami ayaa la filayaa in mar kale ay cadeeyaan taageerada ay u hayaan xalka labada dal ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda taagneed muddada 10 sano ah. Faransiiska oo soo qabanqaabiyay shirkan caalamiga ayaa waxa uu sheegay in heshiiska labada dal uu asaas u yahay heshiis nabadeed oo la gaaro mustaqbalka. shirkan ayaa imaanaya iyadoo wali aysan kala cadeyn halka madaxweynaha la doortay waddanka Mareykanka Donald Trump uu ra'yigiisa u janjeero. Ra'iisul waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hadlay shirkan ayaa ku tilmaamay inuu yahay taariikh soo jireen ah. wareegii ugu dambeeyay ee wadahadallada tooska ah ayaa burburay bishii Abriil ee sanadkii 2014 kadib markii ay xaaladdu qaraaratay. Israa'iil iyo Falastiin ayaa loogu yeeray inay dhageystaan waxa ka soo baxa gabagabada shirka, hase yeeshee laguma casuumin inay ka soo qayb galaan shirkaasi. shirkan ayaa imaanaya xilli ay xiisad ka dhex taagan tahay Israa'iil iyo beesha caalamka kadib markii qaramada midoobay bishii la soo dhaafay ee meel marisay qaraar ay ku diidan yihiin dhaqdhaqaaqyada Israa'iil deegaameynta uga wada dhulka ay haysato.